بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرة ورئيسة واحد مدرسة شرفت له وكسره شنوينيه لعادة ولا حزبك كلمية واحد مرة ورئيسة الكسور ويننا هدان هاي تقيدي يدقكي قبل كأول waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaanba madaxda ka soo qayb gashay iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada safiirka Itoobiya Shamsuddin safiirka Jabuuti Xuseen dhammaanba hawlwadeennada kale cabdulqaadir waa ka socday xisbiga talada haya Jabuuti dhammaan haweenweynaha xisbiga kulmiye iyo martida kale ee ka soo qayb gashay iyo baxda fanaaniinta waa ku cadaystay ilaahna lagu daro waan salaamaya iyagoo soo dhaweynaya fanaaniinta dhammaantood aad iyo aad baan soo dhaweynaya waayo madasha iyaga ayaa qurxiya madasha waxa qurxiya waa fanaaniinta aad baad mahadsan dhammaantiinba waxaan idigu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hilmaamay waa farxaddii baan hilmaamay inaan salaamo madaxdii gobolka iyo degmadan aynu joogno guddoomiyihii iyo meeyarkii taliyii qaybta ciddii ka joogta baan salaamaya waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan salaanta intaan ku dhaafo aad iyo aad bay sharaf noogu tahay maanta inaan ka soo qayb galno oo nalagu marti qaado shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo boorama lagu qabtay waxaanu ka mahad celinaynaa dhammaanba madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka howlwadeennada xisbiga iyo dhammaantiinba dadkii gartay ee maanta ku gooyey go'aamiyey in lagu qabto shirweynihiisa lixaad magaalada boorame aad iyo aad iyo aad baan uga mahad celinay waxaan leenahay waad asiibteen in boorame lagu qabto gobol wal oo Soomaaliland ka midiina xaq buu u leeyahay in lagu qabto mid baan idiin sheegayaa magaalada boorama wixii lagu bilaabaaba bisinka wax lagu bilaabaa booramana wixii lagu bilaabaa maba xumaadaba ee xorun buu socda waxaynu garanaynaa nabadayntii shirweynihii Soomaaliland aynu ku qabannay halkuu gaadhay baynu garanaynaa wixii lagu bilaabaaba way hormaraan dariiqii ugu horreeyey kilomitarkii ugu horreeyey ee Soomaaliland boorama laga bilaabay magaaladii iyo dhulkeenu wadinka arkay maanta waa wada dariiq jaamacaddii ugu horreysay Soomaaliland waa halkii laga bilaabay jaamacadaha maanta dalka intay yihiin waynu ognahay sidaas ayaa wixii lagu bilaababa u barakaysan yahay maantana inkastoo aynaan ku bilaabin oo shirweynihii lixaad uu yahay haddana wuu barakaysan yahay wuu barakoobayaa wuu sii badan doonaa haddii alla idhaahdo insha allah waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbi qaran run ahaantii waa xisbi qaran waa xisbi soo halgamay waa xisbi u soo adkaystay mucaaradnimo fara badan maantana xilkii ilaahay ku guuleeyey bulshada badankeeduna maanta xisbiga kulmiye ayay ka tirsan tahay marka la eego Soomaaliland run ahaantii waxyaabaha loo doortay maanta in magaalada boorama lagu qabto shirkan xisbigu waxaa la og yahay in taageerada ugu ballaaran ee gobolkan awdal ay tahay xisbiga kulmiye soo saa ma tahay waa taageerada ugu badan buu ka haystaa xisbigu haddana waxaanu ballan qaadanaa inaanu intii hore ka sii kordhino oo aan nidhaahno sidii aadan yabaal hal diidan male ayaan rajaynaynaa haddaan la idhaahdo kelmad baan saxayaa saaxiibkay
saaxiibkay weliba waa xabro wadaagno dhae Suldaan Baadi wuxuu yidhi caasimaddii saddexaad baan nahay waxaan leeyahay waa halmaam hadal kuma jiro uu yar hilmaamay annagu waa caasimaddii labaad ee Somaliland magaalada Boorama xeer baa jiro xeerkaasi wuxuu odhanayaa madaxweynuhu markuu xaggaa yahay madaxweyne ku-xigeenkuna waa meel caasimaddu markay meel tahay caasimad ku-xigeenku waa meel baasha qayrinkaa lagu qaybsado sidaa loola soo taana halkaasar dhigay waxaa kaloon leeyahay waxa loo baahan yahay sidaa maanta xisbiga kulmiye uu xisbiyadii kale iyo dadweynahoo dhan ugu yeedhay ayaan doonaynaa inuu waddanka kasbado in cadaaladda uu ka shaqeeyo inuu ummadda isku keeno waaba kulmiya waa laba gacmoodoo kulmay inuu dadka kulmiyo ayaan jecelnahay madaxweynahana waxaan u sheegayaa inaan dhibaato weyn oo gobolka ka jirta aanay jirin wax yaroo reero wada hadlay baa jira sida loo dhigay ma aha run ahaantii taana madaxweyne waan kaaga filannahay annagaa dhammaynana wax dhibay wax ciidani ma jiro hawshaasi waa hawl madaxweyne aanu kaaga filannahay shalayna waad sheegtay in wixii aanu ku dhammayno idinkuna aad qaadan doontin haddee leedha taana aad iyo aad baan kugu mahadnaqannaa dadkaa fara badan waxaan ku soo gabagabaynayaa oo aan leeyahay ilaahay shirkaa shirkiisa innagoo nabad qabna madaxdeenna sharafta leh iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo badqaba ilaahay ha isku keeno dhammaantiinba waan idin salaamayaa dadka martida ee magaalada jooga si fiican baa loo soo dhoweeyey inta ay joogaanna waxaanu diyaar u nahay inaannu dhulka ka hayno sidaa u hayno inta ay nala joogaan martida sharafta leh ee ergooyinka ee ka kala socda gobollada Somaliland oo dhan waxaan leenahay ku soo dhowaada magaaladiinni ku soo dhowaada magaaladiinni labaad waanan idin salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu